إلى الله أنفعهم للناس dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ugu jecel yahay dadka ugu waxtarka badan dadka kale waxtara ama bini aadamka ay la nool yihiin anfaca cilmi soo kordhiya wanaag dadka u qabta wax wanaagsan dadka ku soo kordhiya oo markaa waxtar leh ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka ugu jecel yahay wa axabu alacmaali ila allah suruurun tudkhiluhu calaa qalbi muslim camal la qabtana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ugu jecel yahay farxad aad gelisid qalbiga walaalkaaga muslimka ah ama dhibaato aad ka faydid ama dayn aad ka dulqaadid alxadiid idan xadiidka nebiga salى اllahu عalayhi wasalam waxa aynu ka arkaynaa qofku in uu noqdo qof waxtar leh qof bositive ah qof ummadda uu la joogo ama uu ku dhex nool yahay waxtar ku soo kordhinaya ama dadkii tabaalaysnaa ee dhibaataysnaa dhibaatadii ka dulqaadaya kuwii dayntu haysatay dayntii ka dulqaadaya kuwii murugada iyo culaysku ay saarnaayeen iyo walbahaarku la qaybsanaya oo markaa ka dulqaadaya wuxuu ka mid yahay dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay haddaba adigu isweydii walaal oo anigu aan isweydiiyo intii aynu dunidan joognay dadka yaynu wax u qabannay waxtar ummaddu ay inagu xasuusan karto ma samaynay bini aadamka ma ku fikirnaa dhibaatooyinka inaynu la qaybsanno inaynu ka dulqaadno culaysyada saaran in aynu bini aadamka farxaddooda ka shaqayno arrintaa ma ka shaqaynaa camal la sameeyana waxaa ugu wanaagsan qof aad markaa farxad gelisid ayaa ugu wanaagsan lidalik baa saxaabada rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam arrintan ay si dhaba oo bracticala ugu dhaqmeen nebigu salى اllahu عalayhi wasalam maalin maalmaha ka mida ayuu saxaabada ku soo jeestay salaad isagoo tukaday dabadeedna waxa uu weydiiyey man asbaxa minkum اlyowma saa'ima maanta yaa sooman xadiidkaasi xadiid صaxiixa oo imaam muslim uu warinayo min xadiidi abi hurayra weeye maanta yaa sooman ayuu weydiiyey saxaabadii waxaa farta taagay abubakr oo yidhi ana yaa rasuula allah aniga ayaa maanta sooman nebigu sal ly slam wuxuu su'aal labaad ku weydiiyey man tabica minkum اlyowma janaaza maanta yaa mayd la soo aasaya raacay oo wax ka soo aasay abubakr baa farta taago wuxuu yidhi aniga ayaa rasuulka ilaahayow sidaa sameeyey nebigu sal ly slam wuxuu yidhi man aطcama minkum اlyowma miskiina maanta yaa quudiyey qof miskiina oo wax ku sadaqaystay abubakr baa yidhi aniga su-aashii afraad buu wuxuu yidhi man caada minkum اlyowma mariida maanta yaa soo booqday qof buka oo xanuunsanaya yaa soo booqday oo xanuunkii ka soo fududeeyey oo u soo duceeyey abubakr baa yidhi aniga nebigu sal slm wuxuu yidhi majtamacna fi imri'in ilaa dakhala aljanna qofka ay afartaasi ku kulmaan jannada ayuu galaa afartaa haddii aynu u fiirsanno ta koowaad ee soonka ah oo qofka naftiisa anfacaysa mooye saddexda kaleba waa bini aadan kale oo wax la tarayo bini aadamka in wax la taraa waxyaabaha jannada lagu galo ayay ka mid tahay ummaddeennuna ummad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray weeye watacaawanuu cala albiri waاtaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi wاlcudwaan isu kaalmaysta oo isu kaashada samafalka iyo alla kacabsiga idan dadka muslimiintii dad jidh isku mida ku yaala waa in ay noqdaan waa inay isdareemaan qofba qofka kale dhibaatadiisa la qaybsado oo markaa qof waliba uu ku fikiro sidii uu walaalihii waxtar ugu yeelan lahaa ugana mid noqon lahaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay haddaba walaalayaal wanaagga iyo khayrka si aynu uga qayb qaadanno in sha allahu fariintana walaalaha kale aynu gaadhsiino ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo dad u nool sidii alle subxaanahu wa tacaala uu raalli ka ahaa wa sali اllaahuma waslama calى sayidina moxamed wacalى aalihi wa saxbihi ajmaciin